shirkadda Shabeelle Investment oo ah shirkad ka shaqeeya doonto sarifka lacagaha khalaad ee online-ka ayaa xarun cusub waxay ka daafurtay magaalada Tanijoowar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. munaasabadda daafurka waxaa ka qayb galay ganacsato, haween iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabelle. ugu horeyn Yuusuf Maxamed Cismaan oo ah gudoomiyaha xarunta Shabeelle Investment qaybteeda Jowhar ayaa sharaxaad ka bixiyay shirkaddan waxay bulshada u qabanayso. maalgelinta shirkaddu waxay idin haysaa maalgelin heerkeedu aad u qiimo badan yahay. maalgelintaas oo ah 50% registration-ka iyo waxyaabaha la isku diiwaan gelin doonana waxay noqon doonaan insha Allah wax aan bulshada wax weyn u dhimi doonin. waxaan rajaynayaa inay wax badan horumar ka qaadan doonto. inta badan waxa ay ku celceliyaan haddii aan lacagteeda dhigto khasaaraha. haddii aan ka hadlo khasaaraha anaka waxaanu isticmaalnaa horta saddex waxyaabo oo kala ah. number 1 risk management wax la yiraahdo oo khasaaraha iyo waxyaabahaas lagu manage gareeyo taasoo ayaduna ku xiran qofku inuu ogolaado khasaaraha boqolkiiba inta uu khasaari karo. hadda anaga khasaarayna tusaale ahaan shirkad ahaan hadaan ka hadalno markaan suuqa ka shaqeeyno boqolkiiba 10 aan khasaarnaa inta koobiram inta ugu badan. taasna waxa lagu xallin karaa shirkaddu waxa ay leedahay wax la yiraahdo backup kaasoo ah kayd. haddaan af Soomaali u dhahay kaydkaasoo shirkadda ay buuxin doonto waxyaabihii ku yimaado si aysan macaamiisha wax khasaaraha u gaarin. shirkaddu waxay u adeegtaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo bulshada ku nool. sidaas darteed waxaanu leenahay waa fursad qaali ah oo laga faa'iideysan doono in adeegyada aanu keenay iyo waxyaabahan ugu talagalnay. shirkaddu ma ahan kaliya waxay u taagan tahay maalgelin, waxa kale shirkaddu u haysaa bulshada ku nool gobolkaani shaqo abuur. dhalinyarada oo la shaqaalaysiinayo waxay haysaa adeeg maalgelineed. waxaanu leenahay reer Jowhar ku soo dhawaada gacmo furan. shirkadiin waay ma ahan shirkad dad gaar ah ama dad la yimid ay ku nacfi doona. waxay noqon doontaa shirkad guud oo bulshada reer Jowhar oo dhan. Cabdiraxmaan Maxamuud oo ah xogayaha shirkadda Shabeelle Investment ayaa ka hadlay munaasabadda. maanta iyo beridaba adii 2 maalin 3 maalin 4 maalin qofka xataa noo yimaado oo qarashaadkiisa wixiis noo keenana u sameyn doono si free aan ku diiwaan gelin doono. xataa aan dhehinin boqolkiiba wala qabaatan oo 2 maalin 3 maalin warqadda noo qoran 3 maalin noo yimaado wax diiwaan gelin lacag ka qaadayno haba yaraatee ma jirto. marka waa maasantiin aan bali leeyahay erjooro odayaashiisa xuquuqdiisa waxgaradkiisa la soo dhaweeyay. idinkana waa maasantiin nala shaqeey idinkana wada shaqeynaa dawladda. intaa kadib ka soo qaybgalayaashii munaasabadda daafurka ayaa soo dhaweeyay shirkadda Shabeelle Investment qaybteeda Jowhar. war shay ninka keena waxa la yiri inkastoo nin gees iyo rag u geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban guul oodin mayo. dhalinyaradaani ma horumari karto haddaan garab la siin. lacagta inay ku bixisaan ay doonayaan idinkuna ka faa'iidaan jeebabkiina ku jirtaa waa inaad ka soo bixisaan ayaguna ay ugu shaqeeyaan sidii ay ballan qaadeen. dhalinyarta waxaan leeyahay isku xiraada. Shabeelle Investment ayaan maanta halkan ku soo dhaweeynaa iyo sidii loo shaqaysan lahay oo forex adigoo gurigaaga jooga aad suuq u gali lahayd iyo waxa soo dhan. marka annaga wax badan meeshan ku aragnayoon ka soo qayb galnay laakiin tan waxay uga duwan tahay waa Shabeelle Investment waxay ku faa'iideysaa yani maragtay labadan walxado hadda aan sheego. shirkadda maanta noo timiday ee xafladda noo dhigtay aan ka soo qayb galnay waxaan ula shaqeyn doonaa si hufan oo ay ku jirto xawaahay caloolsamo iyo wanaag. waxaan ognahay in hadda xawaahay aysan kownoo hayno shirkado badan ay yimideen waxay nagu soo jiidato haddaan kuwii kale xoogaa ay nooga dugan tahay inay waxbarashaan wadnaaho la socota ay leeyihiin. ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabelle Ali Ibrahim Cismaan Ali Iili ayaa daafuray shirkadda Shabeelle Investment qaybteeda Jowhar isla markaana dardaaran u jeediyay shaqaalaha shirkadda. wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wixii saareedna aanu nahay inaan goobjoog ka ahaano xusnane waxaas ka duwan ay dhalinyarada ku tartami jirtay maanta in ay ma aragteen dhalinyarada aqoontii iyo ganacsi iswata ay ku tartamaan inaan soo dhaweyno ka wasaarad ahaan. inta kadib kambaniga Shabeelle maanta aan daafurayno wuxuu la mid yahay
kuwii hore oo aan daafuri jirnay qaybo ka mid ah kaliya waxaan rabnaa marka inaanu maaragtay la dardaaranno aan idhaahdo waxa aad dadkaanu hortiisa ka ballan qaadeen ilaahayna maaragtay gacan ha idinku siiyay inaad ka run sheegtaan ganacsi mar haddii la yidhaahdo faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay kambaniga dhallinyaradaas horyaa loo sheegay warar badan meeshaan uma baahno maadaama dhallinyarada ay ku tartamayaan ganacsi iyo aqoon isito soo dhawaadaan leenahay hambalyaan idin leenahay Saadakhal Ismaan dalka News TV Jowhar